nabadgelyo. kuma mashquulsana wiilkan dhalinyarada ah akhrinta darsigiisa sidoo kale ma daawanayo warar ama mowduucyo kale oo noloshiisa waxtar u leh laakiin waxa uu ku foogan yahay howl aan u wanaagsanayn caafimaadkiisa aakhiradiisa iyo noloshiisa dhalinyaranimo aan si cad u sheegno wuxuu daawanayaa filim galma ah taas oo haddii uu sii wado uu xubintiisa taranka gacanta ula tagi doono siigada baandheesiga ama sida ciyaalka xaafadu garan ogyihiin aan u iraahday doorashadu waxay saameyn halis caafimaad iyo mid mustaqbalka ku yeelatay dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho arrintaas waxay keentay inaan ka hadalno mowduucan xasaasiga ah balse marka hore muuqaalkan like saar lana wadaag saaxiibadaada kuwooda ugu wanaagsan dhibaatada sigadu leedahay waxaa ka mid ah naagii waxaa haysanaysid mustaqbalkaadina milkii jiraya haddaad baasha gacanta la qabsatay wiilkan dhalinyarada ah waa uu guursaday hase ahaatee afadiisii waa ay la noolaan weysay sabab la xiriirta ficil yar oo uusan filayn in saameyn uu ku yeelan doono darteed taasi oo uu qabatimay yaraantiisii isaga ayaa inooga sheekeynaya haddaad baasha gacanta la qabsatay naagtii waxaas waa maarmaysaa waa alas xaliin si awladdaadu wax ku soo kacaysa nin weyn baa noqonaysaa iyaal ma haysid dhibaatadaas leedahay laakiin ka wanaagsan ficilka siigaysiga ayaa ah mid ay u nugul yihiin dadka keliga nool iyo kuwa aan lahayn lamaanayaasha natiijada ka dhalata qaarkood markii ay badsadaan filimadan anshax darada ah waxay noqonaysaa laba arrin midkood midda koowaad oo ah 2 daqiiqo oo shallaaya iyo hur isla socda dumarka qaarkood oo qabatimay barnaamijkan aan ka hadlayno ayaa ayaguna nugul u ah xaalada caafimaad darri iyo sidoo kale in noloshoodu ay la qabsanto dabadeedna ay u baahan waayaan lamaane nolosha ku weheliya sida ay inoo sharaxayso gabadhan oo magaceeda codkeeda iyo muuqaalkeeduba aan xifdinay muddo 4 sano ka hor ayaa barnaamijkan bilaabay inaan baahi diro xubinteeda taranka kadib waan guursaday guurka aan guursaday kadib waxaa dhacday inaan weli nolosheyda aniga inaan sidii ahaado sidaas darteed way ku baabaaday nolosheyda gabdho badan oo sidaas sameeyeen inay jiraan macquul ah waxaan rajeynayaa inaan nolol dambe aan dib u bilaabi doono gabdhaha kaleetana in laga waaniyo ayaan jeclaa lahaa arrinta haddaba siigayste waa maxay khatarta aadan ogeyn ee aad dhexmushaaxayso maxayse yihiin culeysyada mustaqbalka aad wajihi doontid dumarkoo kale wuxuu ka socotaa waxa loo yaqaano delayed orgasm yani in ay biyahoodii ay soo daaxaan maxaa yeelay waxay isticmaali jirtay sex toys oo kale ama yani waxay qof aad u isticmaasho kale inay fingerskeeda kale ay isticmaasho so waxaa baaba'ayo mucuska ama yani sensationka oo gudaha ka jiro oo vaginaha so hadhow markii qofkii marriage samayso during markii yani la macal qanunayso ninkeedii waxay u baahnaan doontaa in ay waqti badan yani ay u baahnaato si ay u samaysmo orgasm yani inay ka imaadaan biyo because of waxaa dhintay oo aad u baaba'ay yani receptorska stimulationka badan samey lahay oo qofkan ciyaanka keeni lahay inay orgasmada ay ka imaado so ayadana waa problem kale oo ay dumarka ay kala kulmi karaan yani siigaysiga faraha badan marka ragoo kale oo isticmaalo wax la yaqaano saxophoneska ama yani telefoonada ku hadlo kale ayagana dhibaato badan ayay ku socotaa waxay ku socotaa laba shay oo yani u baahnaan doona in qofka loogu sameeyo intervention ama laga fargeliyo waxaa wax la yaqaano spermatosil oo yani in qofka marka oo habeenkii telefoonka ku hadlo oo wax badan yani oo stimulation dareen oo qofkii maskaxdiisa ay soo galaan yani in la sameeyo shahwadaasna danna yani jirka u baahato in laga saaro lagana saarin xisbina marka inay arurto ay adkaato ay xaniin meel kamid ay degto qofkina macna xanuun ay ku keento marka sidoo kale waxay keenta wax la yaqaano varicocele oo yani xididada xaniyaha qaar ay barbaraan qaasatan kuma babin thrombolysiska marka haddii qofku ku dhaco varicoceleka waxaa la sheegaa in 30% oo ka qaato ma dhaleesnimada dhalinyaro badan waxa ay aaminsan yihiin in ficilka siigaysigu uu yahay mid wanaagsan marka loo babacdhigo galmada aan xalaasha ahayn ee uu qofku sameeyo laakiin sheekh Shibili oo kamid ah culimada Soomaaliyeed quddiisa waxa uu si aad uga hadlayaa diinta iyo waxa ay ka qabto ficilkan dhalinyaradeena baabi'iyay ee mustaqbalka ee siigaysiga horta mas'alada siigaysiga markay culimadu ka hadlayaan ama atibada iyo dhakhaatiirtu ay ka hadlayaan duruuftan ku haysata iyada kamid ah waxa sababa qofku jinsi ahaan
iyo shahwahaan inuu daciifo qaabo badan bay u daciifisaayo mar tanaad sheeganaysay keentaa mar waxay keentaa inuu waqti dheer qofku biyaha shahwada xajin kari waayo waqtigii la rabay iyo meeshii la rabay ku simi waayo ay qodba si degdeg kaga timaaday keentaa waxay keentaa xubinka raganimada ee taranku inuu daciifay keentaa waa asbaabta la leeyahay waxaan iska daayay janagale si aad ugu raaxaysato nolol aan qoomamo lahayn hadhow marka aad mustaqbal samaysato fadlan iska jooji dagaalka ahliga ah ee adiga iyo gacantaada idinka dhexeeya war suga asxaabe waxaad filanaysaa inaan sameynaya ma sameynaya tan kale sooma oodin inaan youtube iyo instagram iyo tiktok aan joogo halkaas iga soo raaca ciao toddobaadka dambana waxaan idin haynaa warbixino kale oo xiiso leh ee nala socdo